in lagu xidhay maxaa ka jira oo dhaantada lagu qabsay lagu yiri dhaanta waxaad qaaday aan haboonayn ina dawladdu kugu qabsatay kooxaha markaas dhaqanka eed ka mid tahay maxaa ka jira arrintaas shaqayga ibariis colob lagu daray basta cayriina hiya cayn bacayn cuntaba shaacadaysanay mayska kaacabaa haddii qof la xidhayana fartuun balbalaadhka iyo catooshyarii mar hore qaban lahaa ninka la yiraahdo farmaajo fartuun balbalaadhku mar hore qaban lahaa marka dee geelo soco markaad ciin daaqdo ayaa lagu yaabaa fanaan Soomaaliya loo xidhayo hees xumo intayna xasuusatay dhamaantiin waxaynu ogeyn in dhawaan loo xidhay fanaan reer Bangladesh cod xumo balse kan maanta ma cod xumo oo codkiisu waa wanaagsan yahay oo waxa la oran karaa waa cod halaasiga ee waxa lagu haystaa midhaha iyo ereyada uu adeegsaday oo waxa bad moodaa inuu hudheel jikada u galay shaqayga ibariis colob lagu daray basta cayriina hiya cayn bacayn cuntaba shaacadaysanay mayska kaacabaa hariko kalankal bris suqaar basto chicken turubo shaacadaysa amba bigays ka doontid kaba dhigo jiko un buu inoo galay عجين فحو عشلاقا ديقاي عالمان مايو عدكالة عندقاهات كتال عانا اللي ذوقيي ميسكا كاعبا dadka ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxay caan ku yihiin ilaalinta afka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ciyaar dhaqameedka aadka loogu yaqaan waxa kamid ah dhaantada oo abwaanada iyo fanaaniintu aad ugu nuuxnuuxsadaan yaana sheekada idinka dilina idinku duwo Saddam oo hor fadhiya fanaan Farxaan oo xarika baxsad ah Saddam soo dhawow mahadsanid hoodo waan ku dhawahay dabcan sheekada xiisaha badan ee markaas aan idin hayaa waxa ay tahay geesteeda waxa fadhiya Farxaan oo markaas ku magac dheer Farxaan Barako waa suugaanyahan dhaantayahan markaas majaajilisti Farxaan waxa uu toddobaadkan soo saaray dhaanto hadal hayn aad u badan ka kicisay baraha bulshada taasi oo markaas ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen haddaba dhaantadaasi maxay tahay dhaantadaasi dabcan haddii aad maqli jirtay ama jigjiga iyo deegaanka Soomaalida laga qaadi jiray dhaantooyin ah dhafaruurta iyo sida hoob la dhilay dhabankaaga indhuhu dhowrayaan dabcan sanadkan waa ay ka duwan tahay oo Farxaan baa waxa uu keenay qorshe cusub oo dhaantadii waxaan dhigi karnaa gabigeedii wuxuu ku soo kordhiyay 2022ka nooc dambe oo loo qaadaya dhaantadaasi waxa uu ku sheegay sheekh cadaysanay miska ka cabaa uu ku sheegay oo garo oo markaas qof dumar ayuu ku amaanaya Farxaan ayaanu markaas su'aashii u horeysay ee aan weydiinay waxa ay tahay Farxaanow abwaanka ereyadan iska leh iyo sidii dhaantadu markaas ay ku timi bal maxay ahayd wax naga sheegaya dhaantadu waxay ku timid adigu waxa hadda cusub ee maanta dhalinyaradu ay doonayso ahaan yaan ugu talagalay erayadeeda haddaan sheego wixii ka mid ka ahaa waxa ka mid ahaa عشقيقا يبريس علب لاغو داري باستا عيرينا هي عين بعين عنطبا شاعدي ساني ميسكا كاعبا عشقيقا يبريس علب لاغو داري باستا عيرينا هي عين بعين عنطبا شاعدي ساني ميسكا كاعبا يا كمي هايد أبوانكا اسكالا ويران صاحبنا هذا سوقنا هايو qorore dayax baa la yiraahdaa waa cunug aniga iga basi yar laxankeeduna waa islaaniga oo halka ayada laxan baa galay abwaanka dhaantadan iska leh dadku waxay leeyihiin talo abwaanku ma koogba ma cuntooyinku kariya dad baa xitaa waxay soo qorayeen abwaanku miyuu gaajisay waxaan cunto ama muxuu ka dooray marka arinta markay ay ku soo gaadhay war maxaad ka tiri horta saan hore idinku sheegay abwaanku koog ma aha cuntana ma kariyo waxbana ma waxyaabaha kuma dhex jiro laakiin waa nin saaxiibka yasaan markii hore badin sheegay oo asxaabteeda kamida waliba kuwa igu dhadhow erayadaas eraya kamida buu maalinkii u horeysay tusay aanun baayday dhamaystir waan qaadiyo sidii buu igu dhamaystiray marka abwaanku waa wiil aad iga basi daayar koogna ma aha waa nin murtidiisa Ilaahay u barakeeyo murtidiisa uu bilaa xaga kale ugu rogay dadku waxay sheegayaan Farxaan oo in lagu xidhay inay askar ku raadinaysa xitaa waa la sheegayaa oo la leeyahay markaas ninkaas dhaqankii dhaantadii jijigu ku dheelay oo dhaantadana waxa saldhig jijigo ah ninka ha laga qabto qaar baa soo qoraya in lagu xidhay maxaa ka jira oo dhaantada lagu qabsay lagu yiri dhaanta waxaad qaaday aan haboonayn ina dawladdu kugu qabsatay kooxaha markaas dhaqanka eed ka mid tahay maxaa ka jira arrintaas horta layma xidhin alxamdulillah xabsi layma geyn laakiin waan maqlahay laftirkaygu
dadkii maqlayay baan ka mid ah dad badan way la soo xidheen oo ma lagu xidhay maxaa kugu dhacay lama xidhin waan maqlahayoon taas maqal bay igu ahayd oo waan maqlay laakiin lama xidhin haddii dee qof la xidhayana fartuun balbalaadhka iyo catooshyaryuu mar hore qaban lahaa ninka la yidhaha farmaajo fartuun balbalaadhku mar hore qaban lahaa marka dee lama xidhin oo marka wax jacburuhu erayo jacburuhu oo adigu dee aan macnaha cayn ahayn dawladna aan faragelin in lagu xidhi ma aaminsan aniga oo laygu xidhiyo xabsi laygu geyn dumarkii la yaqaanay in lagu ammaano dhirta qaybaheeda kala duwan kuwooda ugu quruxda badan iyo kuwooda ugu bilicda wanaagsan lagu ammaani jiray inaad xaggii cuntooyinka u rabto ood gabadha tiraada shaah caddaysanay sidii baastoy sidii cinjeeroy bal maxay tahay sababta ay markaasi ku timi dhaantadaasi iyo falcelinta markaasi kaaga soo noqotay ee bulshadu ay kula wadaageen maxay ahayd murtida horta awal hore waa la jacburin jiray abwaanadii hore hadday tahay iyo hadday fanaaniintii hore tahayba waa la jacburin jiray oo marmar qosol dadka waa laga qoslin jiray balse deegaankeenu wuu ka duwan yahay inkastoo dharkii hidiya dhaqanka aan ku labisnaayay hidiya dhaqanka ahaa haddana iyadoo lagu labisan yahay waa la jacburin jiray wax saasoy tahay dhaantadan marka 2020 casriga maanta la joogaa waxay tahay gabdhihii baa lagu shukaansanayaa liin macaan iyo liin dhanaanay iyo buskud ay xabxabay iyo dee xabxabkiina waa cunto weligeed baa dhirta dhafaruurtii wax lagu ammaani jiray marka haddii dhafaruur lagu ammaani jiray maanta cuntaduba waa dhaqan canjeeradu waa dhaqan bariisku waa dhaqan baastadu waa dhaqan marka waa xeer ay Soomaalidu leedahay waa dhaqan Soomaalidu leedahay waxaan Soomaalida jigjiga waliba leeyahay cunaqabatayn bayba ku sameeyaan qofkii dee jacburiye ee murtida wax yar oo qosol ku soo dara Soomaalida kale tan dee aad bay ugu sacabaysaa way soo dhaweysaa noocyada kale oo dhan wuu yeelan karaa iminka socdaal waad aragteen sharmaboy markuu leeyahay dukaankaas gadaa caleenta shaahay soo gadaa dee waa heeso wuxuu ku ciyaaray dhaqankuna heeso u badnaan jiray waa wax walba oo bulshada maanta misatiyo hore wixii bulshada maanta xiise gelinaya waan soo saari waan macnaha ay u baahan tahay oo dhan waan soo saari waayo suuqayga fanaanimo ku xidhan anigu fanaan baanahay fanaan haddaan ahayna dee wixii cay ah iyo dawlad faragashi ah mooyaane waxa kale toona madax bannaanahay cay iyo dacaayad iyo waxaan ahayn suuqaygaaba dee fanaan haddaan ahayna dee waxay bulshadu jeceshahay yaa laga rabaa inaan qaado daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa sheekadeena wakiilkeena dowlad deegaanka Soomaalida Horyaal TV Sadaam Cabdi Xarago oo la yeeshay fanaan Farxaan Barako oo xarika baxsada